بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بقى مهد اسكاله مهد كبعدي وحان ربا إنان سلامة مركة أقوه الرئيسة بلشدة رير بودلان قارهان بلشدة قبل ككركار قارهان بلشدة دقمة قرلو يوم مدى الصوماليات وحان ربنا إنان هلا كان جواب يركب حنو أرين السوشيال ميديا هلا إسلام دافع أو أحد howlgal uu soo qabtay ciidanka biliiska degmada Qardho iyo ciidanka qaybta oo iskaashanaya dad dhalinyaro ah oo laga soo qabtay magaalada banaankeeda iyaga oo dab shidanaya muusig tumanaya dadkaas arintoodii oo si kale loo turjumay ayaan waxaan rabnaa inaan jawaab ka bixino isla mar ahaantaana raali gelin ka bixino wixii khalada oo anaga biliis ahaan naga dhacay dadkaasi dad waxay ahaayeen dad dhalinyaro ah magaalada koonaheeda ayay waxay ka shiteen muusig iyo dab arin in muddo aan ku raad joognay bay arintaasi ahayd haddaan qabanay ka biliis ahaan saldhig iyo qaybtaba annagu waxa weeye xog iyo waraysi iyo clip baan anagu duubanaynay xogta iyo waraysiga iyo clipkan anagu duubanaynay wuxuu ahaa ma uusan ahayn mid aanu ku bahdilayno dhalinyarada aanu meesha ugu tagnay wuxuu ahaa mid aanu cadayn uga dhigayno waalidiintu biri ka maalin markay noo yimaadaan inaanu dhiraahno caruurtiina wax kan baan ku soo qabanay dad kale oo moobilo waaweyn watay oo nala joogay ama askar ha ahaadeen ama dad kale ha ahaadeen ayaa clip kala duubtay ka bacdina waxay dhigeen baraha bulshada wax aanu uga jeednay inaanu ku baqdin gelino dhalinyarada waxyaalaha sameynaysa ayaa waxa laga dhigay wax riyaliya oo aanu sameynayno mana ahayn wax riyaliya waxaan marka bulshada gobolka bulshada reer Puntland ama bulshada gobolka Karkaar gaar ahaan kuwa degmada Qardho waxaanu ka raali gelinaynaa clipka sida khaldan u baxay boqolkiiba waanu ka raali gelinaynaa bulshada gobolka Karkaar gaar ahaan kuwa degmada Qardhana waa dadka aan u shaqeyno oo aan u nahay adeegayaasha har iyo habeen u soo jeedno cisigooda iyo sharafkoodana inta in leeyahay inay gaarto raali anagu kama nihin cidii arinta gudbisayna annaga ayaa raasanayna sharciga aanu horkeenayna dhalinyaradu way xiran tahay hadda waalidiintii gudoomiyaha gobolka taliyay qaybta baa ku jira hawsha iyaga u taala amarka ay ka soo saaraan ayaan raacaynaa anagu laakiin se boqolkiiba waxaan ka raali gelinayaa bulshada Soomaaliyeed kuwa reer Puntland gaar ahaan kuwa reer gobolka Karkaar gaar ahaan kuwa degmada Qardho waxaasi inay ahayd wax aan ugu talagalay inaysan ahayn in ay bara bulsho tagto waxay ahayd wax aanu kaga hortagayno wax kasta oo diinta islaamka ka soo horjeeda dad dhalinyaro ah bay ahaayeen inaanu iyaga saxnaanu rabnay inaanu anagu khalad gallo nagama aysan ahayn ama aan iyaga khalad ka gallo ama naftooda aan ku xadgudubno anaga nagama aysan ahayn boqolkiiba waa ka raali gelinayaa bulshada waana ka raali gelinayaa waxaan hadda ku soo dhaweynayaa taliye ku xigeenka qaybta gobolka Karkaar oo hawlgalka nugula weheriyay madaxda sharafta leh oo joogta halkan marka labaadna waxaan salaamayaa taliyaha saldhigga iyo asxaafada hadda ila joogta salaanka bacdi sida taliyaha saldhiggu sheegay annagu haddaan booliis nahay shaqadayadu waxa weeye wixii dembi ah oo dhacaya inaanu ka hortagno nooc kasta uu yahay dembiyada caadiga ah booliiska ka hortagi jiray waxa ku soo siyaaday arinta magaalada ku soo siyaaday oo ah in muusig la qaato cajlada la qaato magaalada koonaheeda loo baxo bulshadii oo gabdho iyo wiilal kulli dhammaan gabdho iyo wiilalba ah inay ka baxaan magaalada dab shitaan si fawaaxisha oo aan wanaagsanayn oo diinta islaamka ka xaaraansan oo ra'yiga bini'aadanku uusan qaadan karin oo inaba aan caadi ahayn magaalada hareeraheeda looga sameeyo waxyaabo dambiya oo fawaaxisha ciidanka biliisku arrinkaas aad buu uga howlgalay waxa la sameeyaa arrinka xilliyada u dambaysa oo dadka islaamka ay seexdaan oo dadka waalidiintu seexdaan kowdii habeenimo ilaa 12 habeenimo bay arrimahaas u bilowdaan
waxa kiiska hadda aan ka hadli doono oo meesha aan kaga hadlayno habeenkii taariikhdu ahay toddobadii bisha kowda habeennimo ayaanu qabanay dembiga waxaanu ku qabanay magaalada meelu jirta 20 kilomitir kuba la dhahaa bartanka kubo waanu ku qabanay dadka ugu tagnay dadkaas waxay ahaayeen gabdho iyo wiilal waxay ahaayeen ummad fara badan oo mujtamaca magaalada ku noola waxay ahaayeen dadka dhalinyarada ah oo labeenta ah oo mustaqbalkoodu bilowday oo dadka ugu wanaagsan bulshada ah oo halka isugu tigi dadkaas meesho ahayd kaymo dhexdood waxa naga fikaday intii badnayd waa naga fikadeen waxaanu qabanay dad dhowr iyo 20 qof ah waxaanu doonaynay inaanu arrinka fawaaxishka ka daba tagno oo boolisku qabtaan oo dambiyada waaweyn oo dhacaya inaanu ka hortagno oo soo afjarno booliska ahayd hawshiisu ma ahayn hawshiyadu inaanu bulshada u gafno dhalinyarada u gafno waalidiinta iyo mujtamaca reer Puntland wax dhibaato ah aanu ku sameeyno halka haddii aanu tagnay boolisku qabanay waxaanu duubnay kilibo recording annaga noo ah waanu doonaynay waalidiinta inaan la wadaagno waanu doonaynay waxqabadka meesha inaanu wixii aanu qabanaynay inaanu duubno nasiib darro waxa dhacday kilib baana ka dheeg duubay aanan iska hubin oo aanan iska arag kilibka cidii duubtay waanu qaban doonaa sharcigaanu keeni doonaa waxaanu bulshada reer Puntland nooc kasto ay tahay ka raali gelinaynaa kilibka sida qaldan u baxay waxaanu u ballan qaadaynaa cid kasta oo kilibka duubtay kilibkan duubanayna annaga naga xaday oo baraha bulshada gelisay hadday ciidan tahay iyo hadday shacab tahayba inaan cadaalada horkeeno soo qaban doono waxaanu bulshada ka raali gelinaynaa 100% kilibka siftiga oo baraha bulshada la geliyay oo aan wanaagsanayn oo aan inaba ka sii xun wixii aanu raadinaynay inaanu saxno waxa ka sii xun kilibka waxa ka faa'iideystay kuwa xuma jacaylka ah kuwa aan doonayn wanaaga Puntland kuwa aan doonayn ammaanka iyo stability-ga Puntland kuwa aan doonayn sharafta Puntland waxay u noqotay jaranjaro ay fuulaanin oo ay ka faa'iideystaan waxaan uga digaynaa dadka ka faa'iideysanaya oo siyaha guracan uga faa'iideysanaya kilibka qaldan oo aanu ka raali gelinayno bulshada inay ka waantoobaan waxay ka shaqeynayaan oo wax fiican oo ummadda mustaqbal u leh oo nabadgeliyada sax u ah oo mujtamaca sax u ah inay ka qoraan oo maskaxdooda geliyaan inta ay raadinayaan wax qaldan oo ama ka baxay ciidanka booliska ama bulshaweynta reer Puntland ka baxay intay ku hawleeyeen oo raadinayaan waxaan doonaynaa uga digaynaa dadka inay ka soo waantoobaan arrinta guracan ay ka shaqeynayaan waxaan kaloo sheegaynaa oo halkan boolisaan ka cadaynaynaa oo bulshada reer Puntland u cadaynaynaa nooc kasto ay tahay in kilibkaas ahaa kilib nooca u baxay inaanu ka raali gelinayno bulshada in aanu ku soo celinayno waalidiinta wixii qaldan oo aan kilibka laga duubay inaan ahayn boolisku waxay shaqo ku lahaayeen ama mas'uuliyiinta boolisku ogaayeen ama waxa anagu ugu talagalay inaba waxay aanu shaqo ku leenahay ma ahayn arrinkaas bulshadana waa ka raali gelinaynaa waxaanu ku soo qabanaynaa qof kasta oo yahay baraha bulshada wixii la geliyay cid gelisay baa la ogyahay waa la soo helayaa qofkii geliyay iyo ku ahaa iyo mobilka lagu qaaday intaba waxaan rabnaa inaanu keeno cadaalada horteeda aad iyo aad baa in salaamaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي ويدين لهي waxaan su'aal ma ku weydiiyay magaciisa Axmed Cabdi waxaan ka socdaa telefishinka SBC sida muuqaalka ka muuqatay idinku goobta ka hadasheen oo video markaas mobile lagu duwayay sida warbaahinta la joogto oo hadlayseen dadka kale oo aan leeyahay maadaama ay ku cashatay muuqaalkeeda duubay dadka kale oo ka baxsan dadkeedana oo meesha joogay muuqaalka duubay meesha waxa weeye meel kuba weeyo meel beeralaya weey
waa meel mujtamacu ku badan yahay markii aanu qabannay ummaddan markaanu qabannay oo dad badan oo bulshada ah baa noo yimi dadkaas waxay ka soo kaceen tuulada kubo iyo aaggeeda iyo beerahay ka soo kaceen annagu intii aanu meesha joognay kilibkaanu duubaynay waa runtaa waxaanu duubaynay kilib aanu ugu talagalnay inaannu ku bajinno bulshadii qaldanayd oo aanu qabannay rikoorina ayaannu ka dhiganno oo aanu rabno inaan la wadaagno waalidiinta wixii aanu qabannay iyo ilmahooda waxaanu ku qabannay iyo goobtaanu ka qabannay iyo dabkay shidanayeen iyo waxa ay samaynayeen kilibka waxaan ugu talagalnay inaan waalidka la wadaagno tani sidoo kale meesha marka ka hadlaysay waxaa sheegtay in dhalinyaradu ay waxyaalo anshaxa ka baxsan oo dadkaasi aan ahayn sida inay xashiishad meesha ku cabayeen baa sheegtay haddeerna warbixintiina kumaydan sheegin waxaa kaliya ku sheegtay in banaanka magaalada u baxeen sidoo kale waxaa jirtay in dadkaad ku tilmaamtay inay gaalo yihiin oo dadka ay caabudayeen arrimahaasi dadka aad bay uga hadlayeen social media sidaa la socotay iyada maxaa kaga jawaabaysaa waxaan kaga jawaabayaa xashiishaddu waxay ahayd nooc ka mid ah cabitaan annagu xashiishad ahaan ma qaban laakiin waxay ahaayeen dadka qayb daraageed oon gacmaha ku soo qaadnay baanu soo saarnay gaariga shabaqlaha oo xashiishad cabsan oo goobta jooga waxaa kaloo jira dadkaanu meesha ugu tagnay gabdhuhu ma cabsanayn waxay ahaayeen nimanka nin ka mida bay ahayn waxaa jiray oo kale dadkaanu meesha ugu tagnay ma ahayn dad si caadiya u labisan ama anshaxoodu wanaagsan yahay ma ahayn marka annagu kilibada ka duubanaynay waxaan ugu tagnay maadaaba gabdhaha yaga yihiin ilmaha yaga yihiin kulli xijaabiyadoodii ayagoo gashan baanu duubnay oo aanu hagaajinay oo qaabkaanu ugu tagnay ayaan ahayn marka raggii la joogo iyagu video kamaysa muuqan badankooda waxay meesha kaynahayd wuxuuna rag bay ahaayeen waxay lahaayeen waardiyay lahaayeen oo dad baa ka fogaay oo ciidanka booliska intaana afarta koonaanu kaga nimi koonayaashaanu kaga imanayna dad baa naga aragtida horreeyey qof cararay oo ma garanaysaan boolisku inuu waxyeello ma doonayn kayn bay ahayd meeshii waxaanu noo suurtageli weyday inaanu nimankii qabanno waa ka badnaayeen gabdhaha xataa gabdhaha qayb baa naga baxsatay marka hadda dadkii way xiran yihiin gabdhihii saldhigga ku xiran waalidiintoodu way joogaan marka maxaad idinka qorshaa waxaan uga qorshaa dadkii waalidka ahaa baanu u yeernay waxaan u yeernay mas-uuliyiintii gobolka waxaan u yeernay culimaadudiinkii waxaan u yeernay ganacsadii iyo waxgaradkii waxaanu rabnaa dadka in go'aan midaysan laga soo saaro oo heer gobolo ah oo waxaa go'aan ka gaaraya mas-uuliyiinta badan oo isu yimi baa go'aan ka gaaraya aad iyo aad baa u mudan